in ka badan 40 goobood oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta waxa ka dhacaysa doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug. Dadweynaha aad u fara badan ayaa sabab dheer u galaya inay codeeyaan maadaama ay tahay markii ugu horeysay ay codeeyaan. Xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka biyaada ayaa ka codeeyay mid ka mid ah xarumaha laga codeynayo ku yaala magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha ay ka socoto codeynta isla markaana ay ku sugan yihiin shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo oo la hadlay TV Universal ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan maalinta doorashada. Waa ku faraxsanahay wariga maanta kormeel lagu codeynay ma naarag wariga maanta waxaan ku faraxsanahay maamulkayaga maanta codeeyana yiri codkayna dhiibtana yiri waa ku faraxsanahay waana codeynaynaa waxaan u codeynaynaa GSB waxay nooga dhigan tahay adduunka barkiis inaan maanta codeyno adduunka barkiis farxadeena weeye maanta inaan codeyno awal odayaal iyo waxa soo xuli jiray waxaan la oran jiray waa la idin soo codeeyay waa la idin taliyay laakiin maanta annaga naliyo taliyo codeey codkiina dhiibtana liyo maanta maalin weyn waaye maalin farxadeed waaye waa maalin nolosheena taariikhi ku ah oo qiimo weyn ku leh xasuusna ku lahaad doonta waa maalintii koowaad nolosheena aan aaminsanahay inaan xaqiijinay codkeena meeshaan dhigayno wax laga yaabaa dad badan oo anaga horeeyay ama dad badan inay nasiib u yeelan inay qof cod macnaha ay ka qayb qaataan laakiin maanta ana nasiibkana ilaahay wuxuu nasiyay inaan qof cod aan ka qayb qaadano waana nolosheena markii ugu horeysay aan is dhigi karo codeyn saan oo kale ah u istaagtay maxay kaaga dhigan tahay aniga waxay ka dhigan tahay waa maalin farxadeed waa maalin ii weyn waa maalin agteeda qiimo weyn ku leh marka aad waxaan rajeynayaa inaan marar badan aan saas qof codkaas ka qayb gali doono insha Allah ayaa soo doori jiray hadda shacabkii si warta waxa waaye aad aan u faraxsanahay barnaamijkaas awal oday baa la aadi jiray awal xisaabtan qof gooniya qofka magacaaban jiray waxa laga yaabaa in masiir dhan oo hal qof u tagtid waa soo qalinkiis kugu saxiixo birin aad dhigi karin qof igala xisaabtami kara male liwajiib aad u maasan tahay saaka waxa weeyaan waa maalin weyn shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug gaar ahaan reer Gaalkacyo saakay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gaalkacyo waxay u soo dareertay doorashooyinka qofkii codka ah qof walba wuxuu ku amaartay oo raba inuu maanta ku ciilbaxo codkiisa asagoo siinaya qofka oo isleeyahay maanta deegaanka ama gobolka wuxuu tarbo ayuu leeyahay marka waan ku faraxsanahay inaan saaka codkayga dhiibanayo waan maasantahay liman markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay anagu inta hadda aan soo jirno qarnigeena waxa weeyaan qofkii cod maana soo gaarin laakiin maanta waa maalinteennii waa codkeennii waa sanadkeennii maanta jooga xarunta gobolka Mudug caasimadiisa Gaalkacyo waxaan ka qayb galay doorashada qof iyo coda waxaan u codeeyay xisbiga TST shimbirta iyo 15 waxaan ku faraxsanahay qof waliba saan oo kale inuu qofku rabo u doorto ama xisbigu rabo u doorto sidaasaan ku faraxsanahay waxaan isleeyahay waa horumar la gaaray oo dawli ah soo qofku xor inuu codkiisa geeyo meesha uu asagu markaas rabo maanta waxay iga dhigan tahay waa maalin weyn oo qiimo weyn maantay maxaa yeelay dadkii Soomaaliyeed waxa ay muddo sugayeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo xuquuqdiisa dastuuriga ah inuu wax dooran karo lana dooran karo ayaa maanta suurta gashay riyadaas ayada oo waqti dheer la sugayay marka maanta waxay noo tahay maalin weyn oo qiimo badan waxaan uga mahadcelinaynaa marka koowaad dawladda Soomaaliya oo dadaal iyo waqti gelisay madaxweynaha dawladda federaalka sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa shacbiga Soomaaliyeed oo ayaguna maantay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiiq ayaa sheegay in arintan ay tahay horumar la gaaray isla markaana shacabka ay maanta codeynayaan ma sha Allah waa runtii waa maalin taariikhi ah oo weyn oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku weyn in Gaalkacyo dadkeedii iyo dadka reer Galmudug dhammaantood ay codeynayaan dhadhan gaar ah inay leedahay Gaalkacyo codeynta ka socota oo waxa weeye magaalo ku astaysnayd weeye colaado iyo xasrado iyo dadkeedu hadba dhinac u barakaca maanta inay ayada si nabada dadkii u codeynayaan codkii rasaasta ay dadka maqli jireen ay bedeshay codka dadka cod bixinaya dadkii barakacayaashiina
oo safka gali jiray oo socon jireen ay bedeshay dad safaf dhaadheer u galaya inay codeeyaan maalinkaas weyn runtii waa maalin ummadda Soomaaliyeed oo dhan muujinaysa dadka Soomaaliyeed xalku u ruqaansaday oo dhanka dimuqraadiyadda iyo dhanka dawladdiskeenuna inay ku dhisnaato in codka rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda inay noqdaan waxa dalkan hagaya aysan noqon koox siyaasiyiin oo qol isku soo xirtay inaysan hadda kadib jaangoyn dadka Soomaaliyeed mustaqbalkooda iyo masiirkooda dawladdiska inaysan jaangoyn oo jaangoyntu ay ka timaado shacabka oo u codeeya xisbiga rabaan qofka rabaan cid qasbaysa maanta male xisbiyada kala duwan bay u kala codeyn doonaan